ogdiin magaalada muqdisho jooga sida maanta ay tahay markaan sida maanta ay tahay markaan toon u sooday waraqay qabatoon u sooday maanta waa xafladii furitaanka halkan iskugu nimid kambaniga Asli Pure Care oo halkan ka furay salon loogu talagalay in dumarka lagu qurxiyo alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan sameeynay koorsooyin loogu talagalay in gabdhaha Soomaaliyeed ay training ku qaataan kadibna ay ku shaqeystaan waxaan sameeynay koorsooyinkii waxa la gabdhihii waxay galeen imtixaanaad alxamdulillah qaar kamida way ku baaseen waxay heli doonaan hadda certificate ama shahaado heli doonaan ay hadhow ku shaqeysan karaan ama ay salonka Asli Pure Care ay uga shaqeyn karaan ayagoo ah professional health and safety ga nadaafada in muxuu ahaa taxadarka aqoonta dhan ay u dheer tahay beauty therapy ay sameyn karaan hair dresser ay sameyn karaan xinnihi pedicure manicure waxa la dhaho lugaha jirka dhan ay macnaha diyaar u yihiin ay qaateen koorsadaas trainingkeeda ma sha Allah salon qurux badan oo nadaafadiisa iyo healthiga iyo waxa dhan ay u dhameystiran tahay ay ka shaqeyn doonaan iyo gabdho asturan oo nadiif ah oo diyaarsan shaqadoodana ku faraxsan aqoonteedana leh
waa idin mahad celinaya martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladda furitaanka kambaniga Asli Pure Salon waxaa laga furay Asli Pure beauty salon waxaa laga furay Zobe sarta wasaaradda arrimaha dibadda ka soo horjeedkeeda waa ku faraxsanahay inay igala soo qayb galaan xafladdan furitaanka ah ee mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliyeed sida wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Marwe Fahmo ex wasiiradii hore ee howlaha guud ee guriyeynta xildhibaan Nadiifo Maxamed Ismaan xildhibaan Duniyo walaashii Caasha Baaraxood iyo marti sharaf kale oo aad iyo aad bulshada qiimo ugu leh waa ku faraxsanahay in maanta aan ku casuumo in ay guddoonsiiyaan shahaadooyinka gabdhaha ku guuleystay bismillaahi raxmaani raxiim sharafay ii tahay in caawa aan ka soo qayb galo xafladdan loogu daba gabdhood oo ka soo gudbay waxbarasho aad dalka ugu cusub ama loo baahnaa waxaan rabaa inaan u waco Faadumo Suleymaan Faarax الرحمن الرحيم sida saaxiibtay fahmi sheegtay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qaayaha iyo qiimaha badan lagu soo bandhigay dad loo carbiyay inay daryeelka dumarka ha noqoto luga la sameynayo ha noqoto xinni iyo sharaxaad ha noqoto jirka oo masaajo loo sameynayo timaha waxyaabo cajiib leh soo bandhigeen maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan helno gabdho carbisan oo tababar waafi haysta aqoonna u leh shaqada ay qabanayaan aan ahayn qabay qoorsiib aad ugu farxay marka hadda waxaan shahaadada guddoonsiinayaa Faadumo Ibraahim Xuseen maantay gabdho Soomaaliyeed oo loo diyaariyo loo tababaray saaluunka dumarka qurxintooda aniga waxa igu soo aaday farxadna iyo Faadumo Cabdi Xasan ku soo dhawow maamo congratulations Asli Pure Foundation oo ah academic laga baran doono cilmiga beauty therapy-ga oo loo baahan yahay xilligan aan uga mahad celinayno founderka iskuulkan academic-kada ah Deeqaluula oo ah gabar qurba joog ah jeclaysatana inay ka soo tagto daaraha dhaadheer iyo dhulka quruxda badan oo ay ku nooleed si dalkeeda hooyo ay uga qayb gasho dib u dhiskiisa iyo dib u soo nooleyntiisa aad iyo aad ayaan barnaamijkan u soo dhaweynaynaa haddii aan ka Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaaliya hadda waxay ku istaagtay dhabii horumarka waxaynu ruxsanay oo aan dib ugu dhisanay bilicda magaaladu ay isu soo bedeshay saa darteed waa laga maarmaan inaan marka ka fikirno quruxdeena iyo ilaama hadda iska leh inaan annaguna xaragoono oo ku xaragoono oo isu qurxino oo maaragtay marka beauty therapy-ga aad iyo aad ay ummadda Soomaaliyeed ugu baahan tahay mar waa dhaqaale oo waa xirfad oo waa aqoon
oo aqoon academic ah iyo mid practic ah labadaba ah midna waa dhaqaale oo waa income qofka barta uu ku shaqaysan karo oo uu kaga bixi karo baahida haysata marna waa bilicdii iyo quruxdii maxaan ku idhahdaa qofka caafimaadkiisa iyo jirkiisa iyo timihiisa iyo muuqaalkiisa uu u baahnaa waayo bini aadamka uma noolo oo keliya inay cunto cunaan waxyaalo badan ayay noloshu ka kooban tahay sida bini aadamka hore u maray u nool yihiin inaa u noolaa marka deeqo aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaynaa waa ku dhiirigelinaynaa waa ku soo dhawaynaynaa waana kula dhisaynaa insha allahu tacaala taageero hiil iyo hoo ahna waa kula garab taagana Nahiyatan